Hagaag habeen wanaagsan kulan kale oo xiiso badan waa muuqaaladii caafimaadka iyo cilmi nafsiga. Barnaamijka caawa waxaan doonayaa inaan kaga jawaabo su'aal nala soo weydiiyey si toosana ula xiriirta inta badan waxaan la kulanno response ka soo baxa ama bulshada jawaabaha nooga yimaada ayaa muuqaal doonaya inaan ka sameeyo. Waxaa ila soo xiriirtay inaan shaqaale caafimaad ah oo aan isleeyahay dhowaan ayay shaqada bilowday waxay ka cabanaysay ama ka baqdin ka qabtay xanuun ay isaga shakisay. Baaritaan ay samaysay iyadoo baaritaankaas jawaabtii uga soo baxday ayay weliba haddana kasii shakasanayd. Xaaladdan ama ciladan waxaa lagu arkaa inta badan medical students waxaa loo yaqaano syndrome ama disease. Macnaha qofka wuxuu aruursanayaa casharada uu baranayo ama xanuunada uu baranayo marka uu ardayga sanadka koowaad ama labaad yahay. Xanuunada uu baranayo ayuu aruursanayaa markasta marka wuxuu aaminayaa nafsiyadiisa ama psychology ahaan uu u fahmayaa inuu xanuunkaas isaga qabo. Mathalan maanta wuxuu qaatay cashar ku saabsan xanuunka loo yaqaano gastriga. Markaasuu sheekadiisu markuu uu dhageysto oo akhristo kadib waxa uu isku arkayaa calaamadihii laftirkiisa oo nafsadiisa ayaa u sheegaysa inuu xanuunkan u qabo laakiin dabiiciyan xanuunka ma qabo. Mathalan HIV-ga ayuu baranayaa calaamadihii HIV-ga oo dhan ayuu xifdinayaa. Markaas wuxuu isleeyahay xanuunkaas ayaa qabta HIV ayaa qabta ayuu isaga shakinayaa iyadoo aysan nafsadiisa u sheegayso aysan ahayn xanuun ahaan uusan u jirin. Marka xanuunkan inta badan ama ciladan waxaa lagu arkaa ardayga markuu ku cusub yahay barashada cilmiga caafimaadka ama ha noqdo nursing ama ha noqdo shaqaale caafimaad oo markaas shaqada bilaabaya ama si guud dadka cilmiga caafimaadka barto oo dhan ayaa ciladan lagu arkaa. Waxaana loo yaqaanaa medical student macnaha syndrome. Waxaa weeye waa cabsi uu ka qabo xanuunadan iyo barashadiisa iyo khatarta xanuunadan maskaxdiisa aruurinayso calaamadihii aruurinaysa kadibna nafsadiisa wuxuu sheegaysaa inuu xanuunkan uu qabo. Saas ayuu baqdin qabanaya markaas waxaa arkaysaa in badan inuu dhakhtarkii ku noqonayo ama su'aalo u weydiinayo taasna ay la xiriirto cabsidaas nafsi ahaan aysan xaalad jirta ahayn. Sheekooyin badan ayaa jira mathalan inan baa wuxuu iga sheekeeyey in uu xilligii uu internship-ka ku jiray ama sanadka sidoo kale waxaa loo yaqaanaa xanuunkan internship macnaha medical student oo ah in qofka markuu shaqeynayo kale xaalad kula soo kulmayo. Marka gabadh wuxuu ku jiray shaqadii markaas goobta uu ka shaqeynayna waa goobta ay ku badan tahay xanuunkan HIV-ga loo yaqaano. Kadibna waxaa sartay macnaha iyagoo shaqeynaya ayaa cirbad sirtay. Kadibna maskaxdiisa wuxuu iska dhaadhiciyay xataa bukaankan baaritaan kuma sameyn inuu xanuun inuu qaaday ayuu iskaga shakiyay. Inta badanna qofka marka la baarayo waa la isku sheegaa hadduu qofka xaalad gooni ah qabo mathalan HIV-ga ama hepatitis-ka noocyadiisa kala duwan ama xanuunada chronic ah oo khatarta ah oo loo baahan yahay qofka inuu ka baraarugsanaado. Dhakhaatiirta iyo dadka shaqaalaha markaa waa loo sheegaa. Marka goobtii yarkii muusan wuxuu maskaxdiisa gashtay marka almost inuu xanuunkii uu qabo. Markaasuu xanuunkan in dhowr bilood ay kadib ayaa uu active noqdaa oo baaritaanka lagu ogaadaa. Marka intaa uusan calaamadihii maskaxdiisa ku sheekeynayay waxaa taas kaga sii darneyd inuu markuu bukaankii u tagay inuu xog helay inuu xanuunkan uu qofkii qabo. Waana wax sax ah laakiin isagii maadaama uu aruursanayay nafsiyaadkiisa mar walba cabsidan siyaadada iyo ay ku keenaysay macnaha inuu xanuunkan qofka qabo. Marka muddo waxay dhib ah ku haysay ninkaas sidoo iga sheekeeyay arday ka soo baxay jaamacadda kulliyadda caafimaadka. Macnaha inay dhib badan ku haysay nafsiyaadkiisa ay ku soo noqon jirto mar walba isweydiin jiray mar walba maskaxdiisa ilaa uu baaritaan ka sameeyay. Xataa baaritaankii uu aamini waayay markii ugu dambeysay oo uu ka baqay laftirkiisa uu isleeyahay
wax khaldanaya sheegaya oo dhowr check up u sameeyey. Marka haddaba waxaa loo baahan yahay haddii aad aragto inaad xanuun ka baqayso oo nafsiyaadkaaga inaad u sheegto mar walba in xanuunkan uusan jirin, sabab uu kugu imaan karana aysan jirin, inaad isweydiiso sababaha ku imaan karo transmission. Xataa mararka qaybtood qofka ardayga isagoo oonan sii baarin transmissionka ama habka loogu soo gudbin karo inuu nafsadiisa u sheego inuu xanuunkan uu qabo. taa waxaa la mid ah dadka caafimaadka. Annaga waxaan sameynaa barnaamijyo taxanaha caafimaadka la yiraahdo ama barnaamijyo psychology-ga oo Facebook iyo social media la soo wadaagno. Marka dad qaybtooda waxaa arkaysa su'aalo inay kusoo weydiinayaan markii xanuunkii ay bartaan calaamadihiisa ogaadaan inay isla markiiba ay ka jawaabayaan ama maalmo kadib ay kusoo weydiinayaan ku dhahay xanuunkaas ama aan dhaweyd Facebook soo dhigaysatay tore waxa weeye anaa isku arkay saasaan ahay kana ahay calaamadahaasaan leeyahay. Marka qofkii markaa sii ogaatid ama baaritaan ha u dirtay ama sii ogaatid informationkiisa waxaa ogaa dareemaysa in waxaan uu tahay cabsidii xanuunka xaaladaas aysan ahayn xanuunkii rasmiga ah. marka dhinaca kalena waxaa jirta iyadana oo loo baahan yahay in la miisgareeyo ma aha qofka oo wax ka cabanaya in la yiraahdo waxa uu urursaday oo nafsadiisa waxaan u sheegaysa maahe waa in baaritaan lagu sameeyo oo markaa kadib la xaqiijiyo inuu xanuunkii uusan qabin in kadib lagu yiraahdo ma qabtid ama waa qabtaa. marka dambana macnaha waxa weeye psychotherapy u baahan yahay qofka in la talin loo sheego waxaan inay nafsadiisa maskaxdiisa ay qabatay saasna ay rid ficiga ka yimid reactionka ka yimid maskaxda inuu yahay waxaan urursaday calaamadaha oo tilmaamaya in xanuunkii qabtay laakiin xanuunkan uusan ku hayn aysan jirin. muuqaal la mid ah intaan ku kulmin doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan muuqaalada aan janaladeena kala duwan YouTube-ka, Facebook-ga iyo TikTok-ga ama Telegram-ka intaba waxaan idinkula soo gudbin doonaa muuqaalo kala duwan oo caafimaadka iyo cilmi nafsiga ka sheekeyn doona ama psychology-ga. Assalaamu calaykum. Bye bye.